Assalaamu calaykum. Soo dhawaada. Waa qaybtii labaad ee make-upta. Qaybtii hore suniyaha kaliya ahayd. Waayo videoha nagu dheeraanayo. Soo waxaan ka dhigay laba qayb. Qaybtan waa qaybtii muhiimka ahayd. Waayo waa full face oo make-up ah. Soo waxaan ka bilaabayaa foundationka. Wejiga waa nadiif. Foundation make-up hadaa marsanaysid marka hore wejigaaga waa inuu nadiif ahaadaa, waa inuu moisturized ahaadaa oo cream kasta nooca rabtid u marsanaadaa. So ha isku badinin foundationka badana ma fiicna in la isku badiyo hadduu foundationka uu yahay foundation oo ma aragtay oo adag. Foundationka labo kale yahay, midna waa sida wuxuu sameeysan yahay setting powder oo kale, midna waa liquid. Marka kan liquidka ah isku badinin. Hadaa u baahato more waa soo qaadan karta, laakiin marka hore wejiga wax badan ha ku shubin. Aniga hadda waa u jeedaa wax yaraan ku shubay, laakiin hadaa u baahdo waan soo qaadanaya wax yar ayaan ku darsanaya. Marka ha isku badinin, waayo hadaad isku badiso hadhow wuxuu ka noqon waayo powder aad marinaysaa, waxaa ka kor marinaysaa highlighter ka kor marinaysaa, waxaad ka kor marinaysaa setting powder. Marka ma fiicna inaad isku badisid. Always khafiif ka dhig. So waa ujeeda waa ku blend gareynayaa si fiican ayaa maaragtay isku dhex gelinayaa, meel walba mari si fiican isku dhex geli. yaase waa is dhex geliyay. Marka waxaan marinayaa markan concealerka badanaa hadaa foundationka always foundation waxaa soo gadataa ama isticmaashaa mid skinkaaga u eg, skin colorkaaga u eg. Foundation colorkaaga aan ahayn ha marsanin. Mar walba foundationka colorkaada ha u ekaado, hadhow markaas si fiican uu kugu soo baxaya. Hadda kan waa ujeediin waa skin colorkayga, gacantayda iyo foundationka waa isku egyihiin, waa ujeediin. So foundationka mar walba ha u ekaado skinkaaga, laakiin maxaa la dhahaa concealerka lighter inuu ka ahaado, skinkaaga inuu light ka ahaada fiican. Ma fahanteen? Marka waa kaasa concealerkii aan marsanaya. Concealerkana saas u marso indhaha hoostooda iyo meeshan ma aragtay dhabanka hoostiisa iyo foreheadka ama sanka korkiisa iyo sanka iyo garka ayaad marinaysaa. Kasa marka brush dadka qaarkood brush isticmaalaan, dadka qaarkood waxay isticmaalaan sponge. Saa jeceshahay labada waa isticmaali kartaa, brushna waa isticmaali kartaa, spongena waa isticmaali kartaa. Marka aniga sponge aan isticmaalaa, laakiin sponge waa inay laba kala nooc kala ahaataa. Tii aad isticmaashay foundationka ku isticmaashay ha isticmaalin, waayo waa isku dhex qasmayaan. Always laba xabo isticmaal, midna foundationka ku isticmaal, midna waxaad ku isticmaashaa concealerka. So videoha waan soo gagaabinayaa waayo wuu igu dheeraanayaa haddii kale aad ugu dheeraanayaa. Marka waa soo blend gareeyay, waa ujeediin. Hadda waxaan marinayaa setting powder. Setting powderkana exactly waxaad marinaysaa meelihii aad marisay concealerka ayaad marinaysaa. Setting powderka asaga naftigiisa waxaad ka dhigtaa mid xoogaa lighter skinkaaga ka ah. Too light ma aha, laakiin xoogaa lighterka skinkaaga uu lighter ka yahay. Exactly waxaa marinaysaa meelihii concealerka aa marisay. Okay, haddana waxaan bilaabayaa qaybtii indhaha korkooda ama eyeshadow. Indhaha geeskooda badanaa hadaad rabto indhahaaga inay soo baxaan, geeska mar walba shadow madow ku isticmaal. Inkastoo ay ku xiran tahay dharka aad qaadanaysid. Haddii aad maaragtay aad rabto color soo baxa, mar walba eyeshadow indhaha geeskooda waxaa ku fiican madow.
hadhow inta hore indhaha hore waa bedeli kartaa kalarka marsan kartaa oo dharkaaga u eg. halkaasna waxaa la dhahaa crease-kana badanaa waxaa la marsadaa color xoogaa brown iyo ama gaduud iyo brown la isku daray. badanaa ani waxaan jeclahay inaan marsado colorkan brown iyo waxaan isku daraa badanaa brown iyo gaduud ama gaduud iyo brown. Yes, taasna waxaan marinayaa waa eyeshadow kale. laakiin eyeshadow oo waxa waaye maxaa la dhahaa oo loogu talagalay cutting crease-ka ayaa lagu shape gareeyaa. hadhowna kalarka rabtaad ku kormarsanaysaa. laakiin marka hore qaybta hore ayaad marinaysaa si hadhow kalarka rabto uu u qabto. ani kalara ka kormarsan kartaa, dharkaa qaadanaysid u ekaysiin kartaa, qamaar haddaa qaadanaysid qamaarka u ekaysiin kartaa. so waa soo mariyey saa idin sheegay video waan soo gagaabinayaa. markii hore waan mariyey, waxaan mariyey eyeshadow loogu talagalay in maaragtay waa eyeshadow oo ah maxaa la dhahaa palette eyeshadow oo loogu talagalay crease-ka si kalarka marinaysid uu u qabto si fiican ugu soo baxo. so farteeda isticmaalaya because sometimes brushka fartaaba ka fiican. si fiican meesha rabtid ayaad u marsan kartaa. haddaa rabto brush waa isticmaali kartaa. si fiican isku dhex geli. okay, haddana waxaan sameynaya contour la dhahaa. sanka ayaa shape u sameynaysaa. sankaaga haddaa rabto inuu soo baxo ama uu si qurux badan usoo dheeraado wuu soo dheeraanayaa. shape qurux badan ayuu ku sameynayaa contourka. saasoo kale u marso, ha ku badinin. in yar geesaha wax yar intaas u baahan tahay. geesaha in yar kasoo mari, that's it. iyo cheekskana haddaa rabto dhabanadaada inay noqdaan dhabano qurux badan oo maasha allah ah oo fresh looking, young looking, bahashas ayaa ku isticmaalaysaa dhinacyada. waa contour la lahaa. contour badanaa waa inay noqotaa mid kalarkaaga xoogaa ka madow. kalarkaaga uma eka kalarkaaga mid kasii madow ayaa ku fiican contourka. so haddaaba gadanaysid contour ama bahasha sanka lagu maaragtay shape gareeyo iyo cheekska, waxaad soo gadataa mid kalarkaaga ka madow oo dark madow ma aha, laakiin waxaan ka wadaa kalarkaaga ka yara madow. kalarkaaga mid u eg ma aha, xoogaa ka madow. indhaha geesahooda waa muhiim si eyeshadow qurux ugu soo baxo. si fiican u shape garee. waxaan marsanayaa eyeshadow aan mariyey indhaha korkooda ayaa waxaad marsanaysaa indhaha hoostooda si ay iskuga ekaadaan. ma fahantay? meesha indhakuusha la mariyo ayaad marinaysaa eyeshadow u eg kii aad inta isha korkeeda aa marisay mid u eg si ay iskuga soo baxaan. kamerada waa zoom gareeyay waayo tii hore ayaa waxaan arkay inaan xoogaa ka fogahay kamerada. so hadda waan soo dhaweeyey, waa soo zoom gareeyay.
hadda waxaan isticmaalayaa transluting powder ani powder isticmaal karta laakiin waa powder oo transluting powder la dhahaa. waxaad marinaysaa meelihii aad concealerka marisay ayaad marinaysaa. dadka qaar waxay marsadaan banana powder waa okay, waa marsan karta laakiin aniga banana powderka ma jecli because way daadanaysaa. waa maaragta markaasaa umarsi dharkay xataa kaaga daadanaysaa, ma jecli. laakiin tayda waa transluting powder. hadda waxaan marinayaa cheekska, waa bronzer iyaduna waa powder, bronzing powder la dhahaa, dhinacyada loogu talagalay. waa ujeedaan kalarka xoogaa kalarkeyga waa ka madow yahay, madow saaid maaha laakiin wax ka wada kalarkeyga one shade lower oo kalarkeyga. hadda waxaan gashanayaa eyelashes waa ogtihiin time uu qaadanaya, marka maadaama aan rabin video inuu nagu dheeraado, so asaga kaligiisa hal video in laga dhiga ah because waa ogtihiin time uu qaadanaya, xataa furitaankiisa ayaa time qaadanaya inta. marka so video kale inaan ka sameeyo noqonaysaa eyelashka sida loo xirto because waqtiga qaadanaysaa. markaasa waa soo dhameeyey, lipstick-aan soo marsaday, eyelasheskana waan soo saartay. maasha allah, beautiful. waxaa ii haray waa highlighter ayaa ii haray. highlighterka waa ogtiin cheekska la mariyaa ama dhabanadaad marinaysaa, sankaa marinaysaa, adiga meelihii aad marisay concealerka la mariyaa. maasha allah, it's beautiful, maasha allah. I hope inaad ka hesheen. commentiga soo qora. last video dad badanaa fiirsaday, maasha allah, waa mahadsantihiin, laakiin comment badan lama soo qorin. comment soo qora, subscribe saara. I hope inaad ka hesheen, I hope inaad ka barateen. dadka qaarkood wayba yaqaanaan make-upta, maanta qof kasta make-upka saamarsada, marka I hope inaad wax ka faa'iideen oo aad ka hesheen. That's it, finished. waa dhamaysay, that's it. sankana saas ayaad u marinaysaa highlightka. saa idin sheegay sometimes brushka waxa ka fiican faraha inaad ku marsatid waxyaabaha qaarkood sida highlightka oo kale. beautiful, maasha allah, all done. waa mahadsantihiin, aad iyo aad idinka mahad celinaya saa u fiirsateen, iyo maaragtay inta igu cusub ee subscribe-ka ii samaysay, aad iyo aad u mahadsantihiin. daawasho wacan. I hope inaad ka hesheen. sidaas iyo nabadgelyo. asalaamu calaykum.